garoonka diyaaradaha ee shaati gaduud ee magaalada Baydhabo waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdulle Jaabiri oo booqasho ku soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed. wasiiru dowlaha iyo xubnaha la socday waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed iyadana soo dhaweyn kadib labada wasiir dhagax dhig ay ku sameeyeen xarunta cusub ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto halkaasi oo ahayd akis kaniisadii hore ee Baydhabo oo waqtiyadii dambe ahayd xarun wax lagu baro aqoonta. gudoomiyaha maamulka gobolka Baay Mudane Cali Wardheere Cabdiraxmaan Dooyow iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Yuusuf ayaa ka hadlay dhagax dhiga maanta loo sameeyay xarunta wasaaradda waxbarashada ee Koonfur Galbeed. wasaaradda waxbarashada federaalka ma nagaan saas oo kale wasaaradda waxbarashada state-kana saas oo kale iyo wasiirshe dadaalkii muujinayaan maadaama waxbarashada asaaskii ummadda horumarto fado way waxbarashada ayaa lagu hormariyay basic may waa nolol waxbarashadu markaas dhalintun badan oo ay tahay roog dalka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan state-kan iyo gobolka Bayba wala baradan may ku jeesidaas hadii wasaaradda fadhiga hal iyo meeli walka maamul fadhi marka iskoolada iyo ay tahay walwalba dawladda la haytay in galantiga ka nagadan runtii mashruucan waxa way waxa fan gareynaysa EU-da waxaana implement gareynayso hay'adda Save Children mashruucan run ahaantii waxa way wuxuu ka mid yahay mashruucyada wasaaradaha wasaaradaha lagu balaarinayo mashruucan markii ugu horeeyay waxa laga furay wasaaradda waxbarashada Galmudug oo la dhagax dhigay waxa kale oo wasiir goodax sameeyay wasaaradda waxbarashada oo federaalka ayaa la dhagax dhigay waa markii saddexaad oo tan hadda la dhagax dhigayo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya run ahaantii waxaanu jecelnahay arrimaha waxbarashada inaanu dardar gelino oo aanu sameeyno target dheer aanu ka yeelano arrimaha waxbarashada. wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdulle Jaabiri ayaa isna ka hadlay muhiimadda mashruuca iyo dadaaladii loo soo maray. waxaan aad ugu faraxsanahay markii afaraad intaan xilka joogno inaan Baydhabo nimid annagoo u nimid dhagax dhig iskuulo iyo ka qayb qaadashada horumarinta waxbarashada. runtii xaruntan arkaysaan waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka labaad waxaan uga mahadcelinaynaa mashruuca Global Partners for Education EU-da iyo Save the Children runtii ayagana ah qaybta ay ka qayb qaadanayaan baahida keentay waa hal arrin kaliya in waxbarashada ay hesho goob muhiim ah oo lagu shaqeeyo in la arko inay ka dubanta goobaha kale taasoo noogu muhiimsaneed inaan aragno wasiirka iyo shaqaalaha ka shaqeeya waxbarashada inay helaan goob ay ku shaqeyn karaan ay waajibaadkooda ay ku gudan karaan. waxaan rabaa inaan u mahadcelino gudoomiyaha gobolka oo runtii meeshan sida loo ilaaliyo aad arkaysaan ee quruxdeeda annagana inaan sii casriyeeno oo yani guryo casri ah laga dhis si loogu shaqeeyo dadaalkaas waxaa iska leh gudoomiyaha gobolka iyo shaqaalaha gobolka ayagana qayb fiican ka qaatay. run ahaantii waxaan rajaynaynaa maanta oo dhagax dhigaan u joogno muddo kooban hadduu Ilaahay yiraahdo hay'addu waa joogaan injineeraduna waa nala socdaan haddii dhaqanka waaga hore ahaan jiray inta wax laga tago maca injineeradii waa wadnaa madaxdii hay'addu waa joogaan maanta marka la dhagax dhigo shaqadii hore ay ka bilaabanaysaa. Siraaj Sheesa warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.